weedhi uu garaadku maalinta koowaad dagaalka dhaladka ku dagaalgeliyay waxay ahayd weel la mid ah tii ay boqoradu ku iibin jireen codka badbaadada iyo milgaha oo ay ku baaqi jireen halyeeyada xoogga iyo xuduudda ay ka falayeen si ay jiritaankii milgahooda u badbaadiyaan garaadku weedha wuxuu si cadhan loogu helgaaday cid walba isirkiisa ah oo bad iyo barri meel walba ay joogto uu gaadho waxay weedhaas xushay dareenka dhiifoon ee ruux walba oo dhalad ah oo xalaal ah waa weedhii badbaadada iyo codkii u dambeeyey ee gubaabada waa tii uu qoys ugu yaabahayey islaamka geesiga ahaa ee goobta dagaalka ee caynultaaluud kula diriray dagaalkii tataarka ee dhulka islaamka waagaas ku soo duulay weedhaas waxay noqotay sooyaal lagu dhaato iyo cid badbaado oo layskugu qalisho ama guusha lagu dalbado oo ilaa maanta loo adeegsado garaadkuna codkaas ayuu dhulbaantay ku guubaabiyey si aysan u eegan dulliga iyo hoogga dul hooganaya xilligaas dhegtu markii ay codkaas maqashay waxaa galay welwal dhab ah oo waxa garaadku hadalkiisu u yidhaahdo waa inuu dhaladka xilkiisa gabay ama qolay naga mid ah aysan si dhaba u qabay xilka iyo wixii looga baahnaa aroortaas waxay weedhaasi rogtay in fafaalihii dagaalku lahaa oydil waxay ka dhigtay dagaal jiritaan oo dadku haybtooda iyo magacooda u dirirayaan waxay weedhaasi dagaalka u yeeshay aragti dhab ah oo qof walba oo dhulbaanta ay ku hawlgeli karayay waxay keentay dawadii la doonayey ee inay xabadi dhacdo wacnayd garaadka dhulbaante inuu raggiisa dagaal ugu baaqo oo uu ku xanaanto waxa ay lahayd dareen qalleefsan oo ruuxa dhaladka ay ku diiro maxaa uu garaadku codkaas ugu dhawaaqay iyadoo ahayd in dirir loo wada dabranaado waxay ahayd inuu garaadku adeegso awoodda uu leeyahay inuu raggiisa faro inay adduunka rogaan waxa uu codkaas ugu yabaa inuu yahay nin ogaa inuu rag leeyahay balse goor aan habboonayn ay rag ka mid ahayd hamranayaan kalsooni uu codkiisa ku qabay ayaa uu taas uga yeelay isagoo ogaa inuu yahay nin sidaas yeeli kara weedhi garaadku waxa ay dhulbaanta ka wada rartay xil aad u weyn oo in naf la hura mooye aan dhayal iyo fudayd kale lagu dhigi karin waxauna ruux weliba hurayay wixii ugu wacnaa oo uu haystay maalintaas weliba halkuu uu joogaayuu codkaas ugu tegey dagaalkuna wuxuu markaas galay marxalad uusan dhulbaanta muddo dheer gelin oo midnimo iyo halgana ilaahay ballanki waxay ahayd weedh hiil ah oo ilaahay ku tuuray qalbiyada dadka oo dhan waxaa gelinkaasoo dhan lagu dirirayay kalsooni iyo midnimo muddo dheer dhulbaanta oo dhan doonayay inay duruurtu dawo tahay way ogsooneed bulshadu hase ahaatee siday ku suurtageli karto ayaa taagnayd dagaalku waxa uu fayday muuqaalka dhabtaha ee cadowga aad ishaysaan waxa uu faydaa kalsoonida tamarta aad leedahay waxa uu ku baraa inaad u dagaalamaysid yihiin waxaa dhabtee ee aad doonaysa inaad heshid dhiig baa gelinka oo dhan dhulka qolqolayay shanqar iyo codad geeriyaad oo dhuumaha iyo qoryaha afkooda ka soo baxayey ayaa gabalkii duway la aamusay waxaa ismaqlay codad iyo xabeebsaday oo harraad la bay hoofsanaa waxaa haddad weyd ah ka soo baxa dibno baaruud qalajisay weedhii garaadka ee waddada guusha lagu qaaday ayaa cawayska lagu sheekaysanayay dhegihii daboolnaana nayaayira ayaa ay dhuganayeen dadkii himila ayay ku seexdeen habeenkaas waaguna dardar cusub ayaa uu lahaa